magacaygu waxaa Usman Xasiin kana mid ah dhalinyarada gobolka Mudug Qaasatan magaalada Gaalkacyo marka hore Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh marka labaad waxaan mahadcelinayaa tiimka Hamas Forex ama Hamas Traders oo noo keenay barnaamijka Forex Trading oo ah barnaamij maanta aad iyo aad u wanaagsan isla markaasna bulshada ay u baahan tahay deegaanka guud ahaan marka laga hadlayo qofku inuu guuleysto ama successful noqdo waxay ku xiran tahay qofku inuu talagashan yahay ama og yahay guusha inay ku xiran tahay marka hore qofku inuu ku dareero guuldarrada sidaa darteed Soomaalidana sidaan u ogsoonahay marka hore qofku wuxuu jecel inuu guuleysto haddana ma aqbalo guuldarradana ma aqbalo sidaa darteed waxaan kula talinayaa guud ahaan dhalinyarada guud ahaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan dhalinyarada iyo dad qof kasta oo raba inuu noloshiisa horumar ka gaaro inuu marka u horeyso horta isku day sameeyo oo ku dhiirrado inuu maaragtay naftiisa wax ka bedelo sidaan wada ogsoonahay barnaamijka ganacsiga Forex Trading ama ganacsiga Forex-ku waa ganacsi aad maaragtay sanadadan dambe waddanka adduunka oo dhan laga isticmaalo khaasatan magaalada khaasatan Soomaaliya marka imaano dad badan ayaa ka faa'iideystay barnaamijkan sidaa darteed waxaan leeyahay fursad inuu na soo gaaro maanta magaalada Gaalkacyo la joogo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waxaan rajaynayaa dad badan inay ka faa'iidi doonaan dad badanna inay dib isku dhigi doonaan haddana markii ay arkaan dad badan oo faa'iidaystay inay dhihi doonaan wallaahi maalintaas iyada inaan ku beeri ahayd dadka markii la qiyaasayo bulshadu waa saddex qof wax ku bilaabaa qofna wuu ku daysanaa qofna wuu shaqaayaa macnaha boqolkiiba 10 ayaa wax bilaabaa boqolkiiba 60 way aqbalaan markii waxaas guulaystaan oo horumar sameeyaan ayaa aqbalaan boqolkiiba 60 kala soo hartay way calaacalaan waxay dhahaan haddii ammaanta isku beeri lahaa horumar baan gaari lahaa waqtigaas oo la joogay nolosha ku dhamaysanaya calaacal maaragtay iyo justification ku dhamayso sidaa darteed waxaan leeyahay qof kasta oo doonaya horumar inuu sameeyo waxaa la dhahay shimbirka hore ayaa wuxuu helaa macnaha waamka ama waxa loo yaqaano isheg risqiga ugu horeeya sidaa darteed waxaan leeyahay dhammaanteen waxaan isku dhiirigelinayna inaan qayb ka noqono kana faa'iidaysano barnaamijkan mar kale waxaan mahadcelinayaa tiimka Hamas oo ah dhalinyaro maaragtay ruuxaantii ku fekeray inay maaragtay deegaanka iyo dhulka u faa'iideeyaan aad iyo aad baan umahadsantihiin assalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو عبد عبد علي حكمنا على غير ضد قبل كمية قال هم مجال Gaalkacyo waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa Hamas Trading Company Hamas Trading Hamas waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa in magaalada Gaalkacyo inoo keentay fursadihii dad badan oo naga mid ah anaga magaalada Gaalkacyo ugu aadi jireen magaalada Muqdisho taasoo jaanis inoo ah qofka isagoo halkan joogo inuu ka mid noqdo dadka ka qayb qaadanayo kala oo ka mid ah dadka wax ku darsanayo kala Hamas fursadaha Hamas ay bixinayso fursadaha qaaliya cid kasta oo dhalinyarada ka mid ah koona habboon kana qayb qaadanayso noloshiisa inay horumariso xagga dhaqaalaha fursado badan siinayso sida waxbarashada kale inay ka saacidayso sida inay ka saacidayso kala hadduu arrimo kulul kala iyo arrimo kale oo family oo kala hadduu baahdo kala ay ka kaafin doontaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan jecelahay inaan ka faa'iidaysano fursadda ayna siisay Hamas fursadda ayna siisay Hamas dhalinyarada kale oo ku nool magaalada iyagana waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan jaaniskan ay haystaan dadka kale oo ganacsatadana iyagana waxaan ka codsanayaa oo macnaha barnaamijka u bandhig ahaan u sheegaya dhalinyar barnaamijka qiimeeyaan arkaan faa'iidooyinka ku jirto uu leeyahay Hamas السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.